dhinacyadana kala duwan leh ayaa Liibiya ku dhiriraya kuwaas oo aan marnaba u naxayn dadka iyo dalka Liibiya tan iyo markii Liibiya laga eriyay taliskii al-Qadaafi ma jirin dawlad Liibiya ka dhalata oo ay dhinacyadu heshiis ku yihiin waxa hadda Liibiya ka holcay dagaal kaas oo khubaradu dagaalku ay ku tilmaameen inuu yahay nooca loo yaqaan dagaalka wakaaladda oo ay dagaalamayaan awoodda gadaashiisa taagan walow uu ku magacaaban yahay dagaal u dhaxeeya dhinacyada Liibiya dawladda ay dunidu aqoonsan tahay ee Liibiya ee uu hogaamiyo Faiz al-Sarraj ayaa wajahaysa dagaal uu horkacayo generaalka howlgabka ah ee Khalifa Haftar Liibiya sanado ka hor dagaaladu si caadi ah ayay u socdeen mana jirin madax ka tirsan dunida oo ka hadlaysa maxaa hadda soo kordhay Turkiya oo doonaya inuu xoojiyo joogitaankiisa wadamada Carabta ayaa dawladii Suudaan ee uu madaxda ka ahaa Umar al-Bashir la gashay heshiiskaas oo ahaa mid maalgashi intaas kadib Turkigu wuxuu ogaaday muhiimadda ay leedahay xasiloonida Liibiya markaas ayay go'aansaday Turkigu inuu taageero weyn u fidiyo dawladda Liibiya ee uu hogaamiyo Faiz al-Sarraj taasi waxay hurdada ka toosisay Imaaraadka Carabta oo ku miirbeelay dagaalka Yemen Imaaraadka ayaa si degdeg ah u taageeray maleeshiyaadka Generaal Khalifa Haftar waxaana fagaarayaasha dagaalka Liibiya ku soo biiray hub casri ah hubkaas waxaa la sheegay in Mareykanku uu Imaaraadka ka iibiyay kol hore ergeyga u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Liibiya Ghassan Salama ayaa dhowr jeer sheegay in dagaalka la joojiyo si loo wada hadlo ciidamadana la kala qaado in dagaalka la joojiyo mid labaadna waa in ciidamada la kala qaado waayo ciidamadu aad bay isugu dhow yihiin waa in si toos loo kala qaado sida uu sheegayo Hafid Guweyl oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Imaaraadku uu faragelin xooggan ku hayo Liibiya diyaarado drones ayay Imaaraadku ku soo qufayaan Liibiya iyo sidoo kale daabulidda hubka casriga ah qaarkood ayaa la soo riday waana la soo bandhigay qoyda maleeshiyaadka waxaa u qaabilsan Imaaraadka generaalka dilaaga ah ee reer Suudaan Maxamed Hamdan Dagulu oo loo garan og yahay Xamdiiti dhanka kale Turkiga waxay si cad u guddoonsiisay dawladda Liibiya gawaari gaashaaman oo Turkigu sameeyo falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in Turkigu uu doonayo soo noolaynta dhaxalkii dawladdii Cusmaaniyiinta oo uu Turkigu mar waliba ku dhaarto لا يخفى على الجميع مشروع أردوغان cidna kama qarsoona mashruuca Erdogan oo ah inuu soo nooleeyo dhaxalkii Cusmaaniyiinta في كتابات معروف هذا السيطرة على كل الدولة المشكلة هي الدعم taageerada uu Haftar helayo waa dawladda mandiqada iyo gobolka ku yaala قوة إقليمية وجهات أخرى دولية يعني وهذا taasina way iska caddahay uma baahna wax cadayna waxay adeegsanayaan hub casri ah iyo diyaaradaha habeenkii wax duqeeya استخدام الطيران madaxa xukuumadda Liibiya Faiz al-Sarraj ayaa sheegay in Haftar uu u baaqayo wada hadal waxa uu sidoo kale sheegay inuusan jirin wax dagaal ah oo kala dhaxeeya Haftar shakhsiyan dhabahantii ma jiro wax khilaaf oo naga dhaxeeya shakhsiyan aniga iyo Khalifa Haftar waxaana kulmiyay waa wadanka waxaan rabno waa xasilooni waxaan doonaynaa ciidan midaysan waxaan doonaynaa dagaal ka dhan ah argagixisada oo midaysan dhanka kale madaxweyne Erdogan ayaa Generaal Khalifa Haftar si cad goob fagaaraha ugu tilmaamay inuu yahay burcad loo baahan yahay in cadaaladda la hor keeno lama saadaalin karo halka uu saldhigan doono khilaafka iyo dagaalka ka taagan Liibiya kaas oo ay ku lug leeyihiin dawlado ajaanib ah